marka waxaa rabaa walaalahay baatin oo idin mahad celinaya waxaa rabaa inaad gaarsiin igu sameysano si degdeg ah waxa ii soo qabataan maxaa jecesha lagu qabto waxaa jira inta sandaqad la ii furo oo guriga la ii hagaajiyo ani ilmaheydo oo maasha Allah nooga dhigaaramna carruurta isku marigtaan carruurta dugsina ma dhigtaan iskoolka ma dhigtaan waxaan ka geenana ma haysto wax la'aan baa ii haysta waxaa rabaa in ilmahay dugsi la ii geeyo iskool la ii geeyo ilmihii la gacan qabado aniga gacanta la iiga qabtaan rabaa walaalahay tiin waana mahadsantihiin marka imisa carruur leedahay carruur 8 baan leeyahay ugu weyn jir kan u weyn 14 jir weeye ku soo shaqeeyay maxaa soo shaqeynaa magaalada baa waxa aadayaa ay garaama aruuris oo usoo dhan la soo dharbaahay naga taga leeyahay dharbaan la soo dhufanayo waa la dilaya waa la soo dilay usagoo ooyna ku iimaanay hooy maanta shilin ma soo hanin wax baan soo waaya ku leeyahay hayaa haday lagu soo dilo ilaahay ba wax qabay meel fadhiiso irsag ilaahay hayaan dhahay baqow daraadeed hadda qofkii oo maanta na ay oo jireerna dhaho oo maxaa la dhahaa uso oo na ay jireertan wadanka waa lagu saaray kan baliyay hadayna awood oo qofkii kala dirino oo ku ayna hadda ma haysano jireernima kuga aynayeen ilmaha naagaha jireerka oo qashinka aruurinayeen oo hidaafada ku rafanayeen oo kan weeye kaas weeye oo buushishka ku jiraan oo wasaga saas lagu dhigay oo hidaafada ku dhaarfna 12 ku lagu dhigay naagta mido oo tan oo saas oo maas adeys waa lagu dhigay hadda naftirkeeda marka awood aad ku ayso oo wax ka dhaxda hadda ma qabto wadandada waa joogna soo moogid marka waa lagu aynaa awood oo qofkii hadayna aayo oo kula dirina ma haysano walaalo waxaan wadanka ma joogtaan ee saasana noo aynay dadkayga waan jeclahay aniga xamse cabdilaahi xuseen oo ka tirsan gruubka tiimka Somali Faces waxaan maanta garowe u nimaadnay inaanu wareejino lacagtii loogu talagalay ay soo caawiyeen dhammaan followerska amba dadka ku xiran page-ka Somali Faces dadkaas oo doonayay inay caawiyaan wax u qabtaan marka lacagtii ma doonayay maanta inaan wareejino oo isha ku wareejino lacagtu ay soo dhiibeen dhammaan dadka caawiyayshi waa 3,830 marka lacagtu waxay sida loogu caawin doono iyo waxyaabaha ay ku qabsan doonto iisheeda sheegi doonta iyo cid ay u wakiilanayso Somali Faces waa mahadsantihiin intii oo idin mahad celiyo walaalahayda gacan iga qabteen waxaan rabaa sandaqad waa la ii dhisoyaa wala kalma ka sadar haye waa mahadsantiin walaalahay asanta idin ka hay walaalahay intii oo waxaan rabaa in gacan qabteen sandaqad la ii dhiso oo lacag la ii siiyo gacanta la iiga saaray waa mahadsantihiin ahsan ba idin ka haya wala kala ka daro banka saanada bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn walaalahan Somali Faces waan soo dhaweynaynaa runtii dadaalka ay wadaan oo ay ku taageerayaan walaashan iisho oo ah in ay soo ururiyaan lacag miqdaarkeeda u dhan yahay 3,883 kadibna codsi ka yimi iisho in lacagtaas loogu furo goob ganacsi ay ku ganacsato oo kooban waxayna sidoo kale ay noo idmadeen in aanu gacanta dhaqaalaha ugu hayno ilaa inta aanu loo diyaarinayo ama loo sameynayo goobtii ay ku ganacsan lahayd run ahaantii xarunta deegaanka iisho waan soo aragnay waxaan isla qaadan annaga iyo tiimka Somali Faces in halkaas looga sameeyo meel yar goob yar oo ganacsi iyaduna ay diyaar u tahay insha Allah inay ay ganacsigaas meel fiican iyo horumar fiican ay mustaqbalka ay ka gaadho ay farxad weyn u tahay annagana ay farxad weyn iyo runtii nasiib ay noo tahay inaanu ka saacidno oo garab ugu noqono sidii ay ganacsigeedaas ay u hirgelin lahayd wax badan insha Allah waanu ka warhayn doonaa ilaa inta ay mustaqbal fiican iyada iyo qoyskeeda iyo familigeedaba ay uga gaarayaan marka khayr badan baa u rajeynaynaa mahad balaaran ilaahay baa mahad iska leh waxaan u soo jeedinaynaa tiimkii arintan soo najixiyay ama heerkan soo gaarsiiyay oo ah
Somali Faces walaalahayna Somali Faces waxaan rajaynaynaa in intaan iyo ka badanba ay sii gaarsiiyaan dad badan oo runtii baahi noocyadan oo kala qaba. وما تنسى